تجارتك لأن النبي أيا صلى الله عليه وسلم يلي فإن المساجد لم تبنى لهذا وقفك وفهمه إن أنا عدوان كودين عدوان إن أنا كودين أي تهون أمرك رسولك أو خلافه أودد أقول لي هاي مسألة مهمة وحكى الشيخ الشيء أو مركز ليه هاي اللي أربح الله تجارتك وهبار صمها قفل هبارسها هبار كنا هدون الصواب اللي هو عدوان دون الصواب لهين وعدوان يحد جذب يقدر هو إن القفص كهبارته محاكوب إنه إن القفص المساجد كذي صادقوها بارته وترى إلى هاي تجارة هذا باين معاش كامسيو ويحن إسقى أي عدوان كدعي تاسو شيخ لي إسقى أي عدوان كدعي ما دام عدوان كدعي وأمريكا اللي تشبيه ومساجد صلاة يو تصبيح يو ذكر على الله دسي وجناعس الله صوت دونتي إسقى عدوان كدعي وحنا متيستي إن إسقى ما كان سا إن لخباره أي متيستي يبوهين تل يبوهين أيو من اللهم صل على محمد وحي اللومي دي وي بدين النبي صلى الله عليه وسلم وحو شيغي نيف خولو لومي oo masaajidka laga dhex yaboohinayo waxa lamida in wixii kale oo dhanba haduu muftaah masaajidka kaaga lumay wana dhacda mararka qaar kood intuu qofku istaago ilaa muftaahba masaajidka kaga lumay wax xaraano ma banaano wax weeyaan waxa lagu oranayaa la radda Allahu alayk ilaahi kum soo celiyo oo masaajidka gudiisa aad ka tiraahdo ma banaano ayuha al-ikhwa way لكن سبا لagaga bixi karaa waxa lagaga bixi karaa buu sheekhu yiri waa iyadoo hadii masoo kale sheekhu wuxuu sheegay dhinacoogaasi in dhulka uu sheekhu ku noolaa raximahullah taala meel baa jirta masaajid gudihiisa wixii lumay la suro hadii saacad luntay ama muftaah lumay gidaarka la suro waxa uu ku jirnaa kaas sheekhu yiri waxana ka sii fiican buu yiri haddii dadka masaajidka ku tukada ay isla waafaqaan ahaan war wixii masaajidka ku dhaxluma ama imaamka loo dhiibo ama muadinka loo dhiibo ama imaamka loo dhiibo ama muadinka loo dhiibo taasa ka si fiican buu halkii masaajidkiisa in kusoo sheekhu baneenayo haddii masaajidkiisa la suro laakiin wuxuu taana khatar ba ku jirta hadii ay yihiin wax qaali saacad qaali hadaad sudho inuu qof iska soo galo laga yaabo ilaahay ka baqaneen iska saacad iska qaataa suuragal مفتاح gaari hadaa sudhay intuu salaado lagu shirinto qof iska qaato oo gaarigii uu iska kaxaysto marka in mushkiladaas ka dhalan kartay wiil hadii waxyaabihii masaajid gudiisa laga dhaxelay in masaajid gudiisa la suro ama meel isla yaqaano dadkooda arkayaan la dhigo in mushkiladaas ka dhalata laga yaaba waxaana ka fiican buu sheekhu leeyahay rahimahullah taala in ay dadku isla waafaqaan in wixii masaajidka kuluma ee masaajid gudiisa laga helo in ama imaamka loo dhiibo ama muadinka loo dhiibo hadii kalena qofku albaabka masaajidka dibadda intuu istaago oo halkaasi uu ka naadiyo oo ila wariye ka luntay saacadani ay waxa saacad baa iga luntay miftaah baa iga lumay maxfadadii lacagtu igu jirtay baa iga luntay masaajidka dibaddiisa uu ka naadiyo laakiin masaajid gudihiisa waad aragtaan oo nahyiga nabiga sallallahu alayhi wasallam uu arrinkaasi u nahiyay way ka waran qofka isagu naadinaya wuxuu helay tio mas'alada hore waxay ahayd adiga wax ka lumeen baadi ayaa ka luntay war waxaas ay neefka ilaa iga lumay neef ariga iga lumay mafaatiix baa iga luntay adiga naadinaya ka waran hadii aad wax lumay aad heshay masaajidka gudihiisa maka naadin kartaa odan kartaa muftaaxa yaa leh saacadaasi ayaa meesha weysada ayaa laga tagay yaa leh masaladaasi ma banaan tahay way wuxuu sheekhu yiri hada ajaasahu ba'd ulama culimada qaar kood arrinkaasi way baneysay buu yiri oo la ba'sa bihi bi ilaahna lian hada ihsaanun dadkaad u samar falaysa wanaag baad wada wax manfaco adiga kugu jiraan ma jiro culimada qaar koodna way karaahiysteen laakiin buu sheekhu yiri sida hadalkiisu uu dhigaayo rahimahullah taala sixita khilaafkaaba looga baxaba albaabka masaajidka istaag oo dadku markay soo baxayaan waxa tiraayo mustaaxasi ka lumay iyo saacadaas ay ka luntay si aad khilaafkii aad uga baxdo laakiin waad arkaysaa in uu sheekhu leeyahay rahimahullah taala culimadu masaladan dambe way isku khilaafeen qaarna waxna way banaantay
qaarna waxay ma banaan laakiin khilaafkaba saad uga baxdo dibadda istaag oo dadku markay soo baxayaan u sheeg way xadiiska inta ugu dambaysa wuxuu nabigu kala u nahiyay aw yunshada fihi shi'run iyo in masaajidka gabay lagu qaado marka wuxuu yiri hadduu shicirku ama gabaygu yahay mid xun dee waa sax weeyaan oo ma banaana in masaajidka la soo doonto in gabay qabiil lagu caayayo ما بنانا كاسي لكن شيخ أبو يري الأشعار التي بها الخير فإنها جائزة وبنانتي بيقول شيخ رحمه الله تعالى هدي قبي وناكسن ودتك لوجود دير رجلين أيو ودتك الدنيا اللي جاي ساهدين أيو وآخر لوجود عليسين أيو ودين تلقوا أمان أيو ورسولك لوجود دفاع أي صلى الله عليه وسلم دين تيشرع عدم كلام سلوجود دفاع أيو وعرورة الدين تلقوا برايو شعر كاسي قبي كاسي وفي عين هاي وحمانا كما تشبنا إن مساجد جوديهيسا لغيره حسان بن ثابت رضي الله عنه أيا قبل مساجد جوديهيسا كقاضي شري عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيا أنكر عليه حسان مساجد جوديهيسا كقبي أيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيا كو إنكري مركها عمرنا حسان عمر كويري قبل عمر وحن قاضي شري في هذا المسجد مساجد جوديهيسا أيان كوجبي شربويلي وفيه من هو خير منك يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يدم ساسك مد كاخير بدن وجوجه ورسولك عليه أيان كوجبي شري محد يودي ليسا مركا عموما المسألة ذا سنة وحويا وأنت سأين كبر حين إن هدي جبي وياه مد خير له وبنانت هاي المساجد كجودي سلوجو جبيه يدو أن دلقوا فوقنا وقت هذا الصلاة هاي وقت هذا تذكر القرآن كي ذكرك أي كشران أدول لكن هاي جبي حن إن مساجد اللي قالوا فوق هذه وياه الله أعلم وحكروا باب كوسو حجة وحلسكنا هي يا إن لما تجد تونت إيه بصشة قفكي صاعنا المساجد كإبادة واي أو غيره مما له رائحة كريهة أصلا قياس وياه يعني نهي يقول حكومة وتونت إيه بصشة سكرم يصير ده وحي إن حن له إذا ولا راعينا والسيجار كيبا كميدا عفا الله وياكم ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث كيسا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة قفك جيد كن صاعنا وجيد كوكي يعني الثوم وتونتويا فلا يقربن مسجدنا متفق عليه بخاري ومسلم سوري وفي رواية لمسلم نوحي مساجدنا مساجد أيون أسود دوام يا الثوم قفك جيد كاسي صاعنا يونا مساجد يد أسود دوام بويري واي وعن أنس رضي الله عنه قال وحي قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أيون أسود دوام ولا يصلين معنا أيون نلتكن متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا هنقف هذا ابو نبي قفك بصل أما تنصعنا أو فليعتزل مساجدنا إذا هكذا يرادوها كفوا هذا متفق عليه لأن أحاديث تا صور نروح يكسو أرورتي يا قربا حكورنا يعني وروح وحس كسلام حضرتك أروح كأنسان يا محايم كقاد كان تتبع لجوء ابتدائي إن أي أحكام تشريعون أي إسكا قرصان وإحنا آخر إمام النووي رحمه الله تعالى وفي كتابه المجموع ومن أعظم كتب الإسلام وياه المجموع ومن أعظم كتب الإسلام هذه إمام الشافعي وحنا كذا إمام النووي إلهي وقدر لها إنه لما يستره وعمره قول يران لهانا وحنا نقول له كتاب عجيب ولو هدو سوق قال لها باب المعاملات كتاب يعني لا مثيل له نقول الله وحكى هذا شيخ إمام النووي رحمه الله تعالى رفع اليدين حلقة صلاة مركلوا بتشرو رجعوا حولي ومسألة عظيمة بقول أدبو غير راضي مسألة داسي رجعوا حولي وحى إن ولبوا حولي ومسألة أحكام هذا وبهاي قفك ممكن خاصة بوي لقفك الصلاة بدني يسنوها بدن تكنية رفع اليدين
imaam nawina waxa weeyaan